degan hawaa macaad ciyaal weerar raaxad iga qaadeen yaa saaki gaara laga soo mindiyay ciyaal toorey kuma jirin wax cunug masaakiin oo hebel salaad hebel diin cidiisa diinta u dhigto iskoolka u dhigto jooga gurigiisa isoo jooga oo fadhiya ay intay soo kor istaageen ay seef la dhaceen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى قالي الصباح وناكسن قلب وناكسن بي وناكسن وحكسي كوتا وناكسن وحكو رجينا أدوغو فرحسن مالنتا تانا مقالكن داود ونتسيان ولا جان قادة بريد كين ولا سعطو وحكستو دالك إيو ديبدا كدعايا ولا سعطو جانل كان سبسكرايب شار سوكر مقالكن لايك ريسي مقالك وبها مدن وجار آدي وما سنتين سيداد مقالك سار كسو أركتين مقالكن إستاغا مقال آدي أمروغا بدن ويل كان هالكان كي جيدان oo aha wiil 16 jir ah haatan jooga wiil meed ah oo adduunka ka haajiray waxaana dilay ilmihii hawaarnaa ee la magac baxay ciyaal weero dabcan caruurta mar badan sheegay inaysan faa'iido soo wadin ee soo wadaan kaliya amba ay u dhiman tahay inay dadka dilaan maantana waa ay bilaabeen wiilkana u jeedaan Turkiga u socday sida la sheegay nafsada ay xal dhaafiyeen waliba dilka kale ee waxay u dileen qaab naxariis dara ah oo xataa qofka bilaadanka ah loo dilin marba qofka hadii aad dilayso xataa nafta laguma dhibo wiilkan isaga waxa jira xataa muuqaal la soo diray laakiin waxa ka baqaya qolada YouTube-ka inay ganaax kala kulmo maadaama meeshan aadan wax kasta soo dhigi karin wiilkan isaga markada magaciisa waxa uu la sheegay Xamaada wuxuu ahaa wiil 16 jir ah wuxuu naftiisa ku waayay ciyaal weerar dartood isaga kama tirsaneen oo groupkooda kuma jirin dadka is dagaalayeen kuma jirin way qabteen way iska dileen yaani dadku iska dilaan caruurta qofkii qabtaan way iska dilaan waxa la alaawna xariistay Xamaada oo 16 sano jir ah waxa xalay degmada wada jir ku dilay ciyaal weero isagoo gurigiisa sii galaya wiilka dilka geystay waxa la sheegay inuu dhawaan u socday dalka Turkiga inna lillahi wiilka dilka loo geystay waxa la sheegay inuu dhawaan u socday dalka Turkiga marka gacanta ciyaal weero ku baxay ciyaalkan waxa waayay Muqdisho way ka jiifaan iska ma qabanayo dadku way iska dilayaan dad xumo tiradooda dhan ka badneen 200 ruux oo ciyaal oo dib badan hada iska qaweysiin maalin walba ilmihiina yaraasan u leenayaan oo mustaqbalka la wiil yar oo dhalinyaro iska aha Turkiga u socdo waxbarasho ma gar karo marka iska qabta dadkan intaysan ilaa iyo kan ugu dambeeyo aysan dilin waa yarida way ka oynayaan sidoo kale dadkii waaweynaa way ka cawaadayaan sidoo kale caruurtii yareed uma dirsan kartid adeeg wadada u istaagayaan way dilayaan lacagta ka qaadanayaan markii ay Muqdisho iska celiya caruurtan waxa lagu dilay wiilkan toorey ay ku dileen inta badan toorey un bay isticmaalaan bistoolada ma haystaan intooda badan bistoolada aad bay u yihiin wax haysto laakiin toorey u badiyeen ciyaal toorey kuma jirin wax cunug masaakiin oo hebel salaad hebel diin cidiisa diinta u dhigto iskoolka u dhigto gardaraa lagu dili gurigan iga dambeeya waxa uu ku yaalaa degmada wada jir gaar ahaan xaafadda korontada xalay abaara labadii fiidnimo ama 8 fiidnimo waxa lagu dilay halkan wiil dhalinyaro ah oo daadiisa lagu sheegay 14 jir wiilkaas sida la sheegay wuxuu ka soo baxay masaajidka salaada cisha ah waxana uu ku leersanaya ama uu ku nasanayay darjiinkan halkan ku yaala kadib halkan waxa ku soo weeraray ciyaal weeraro waxana isku dayeen inay nafta dhaafiyaan ugu dambeyntii way u suurta gashay oo ka soo carray danna waxay ku qabteen guriga waridiisa hortiisa ah kadib wiilkii waxay ku sameeyeen ilaa ay 5 tooriye ku dhufteen bal fiiri horta in ay yihiin dad manxayaal ah wiilka masaajidka ka soo baxay tarjiinka buu ku leersanayay halkaas oo iska fadhiyay way dileen marka idin leeyahay dadka manaxaan waa gaangistayaal halis ah meel halis ku sii socdaan maanta waxay marayaan caruurta yareed masaajidka inay u istaagaan kadibna ay qorta ka jaraan ugu dambeyntii way u suurta gashay oo ka soo carray danna waxay ku qabteen guriga waridiisa hortiisa ah kadib wiilkii waxay ku sameeyeen ilaa ay 5 tooriye ku dhufteen tooriyadii kadib uu u dhaacay wiilkii waxa loo qaaday isbitaal dhaawacii soo gaaray wiilkuu dhaacay kadib uu geeriyooday eelkii wiilkii oo nala hadlayna waxay sheegeen in wiilkooda lagu dilay xaq daro qofkii dilina ay yaqaaniin anigoo ah Axmed Maxamed Nuur ku magac dheer Axmed Degay waxa idin adeynaa in xalay wiilkayga oo la dhahay Xamaada Axmed Maxamed Nuur markuu xalay in ashii oo kale soo weeraray iyo halkan oo weerar lahay soo gurigiisa jooga beesha hadda aan joogo waa gurigiisa soo jooga oo fadhiya ay intay soo kor istaageen ay seef la dhaceen marka seefti dhiig bax daraadeeda oo dhintay anoo isbitaalka u wada almuhiim dawladda waxaan ka cabsanaa inay cadaaladda ay ii sooraan oo wiilkaas ii soo qabta
kan oo dilay ma ahayn mid kalaan soo qabanay ciyaal weeradii ah kan oo dilay waxaa la dhahay ibraahim maxamed ibraahim oo ku magac dheer dacay dhalinyartii oo dabcan soo sheegaya aabbaha wuxuu leeyahay wiilkii dilay wiilkayga waa garanaa ibraahim la leeyahay hala soo qabto qofkii ugu horeeyay ciyaal weerar hadii hal mar la waafajiyo cadaaladda kuwa kale way baqayaan weerarada markaa soo qabanay qaar ka mid ah waxay sheegeen inaga bedelina dacay dilay marka dawladdu waxa qabsana maadaama yarka magaciisa ahayna oo gurigiisana lahaa in ay soo qabto dawladda taas ka cabsana illa inaga ma weerari karna cidii shacabanahay shacabka dawladda ku nooshahay dawladda marka arintaas ay fulisay wiilkeena waa wiil oo maanta hadda dhibaysan oo ahaa alxamdulillah hadda ina waxa rabaa inaan soo duuga saaka dhana oo ordayn booliiska inaga ilaa hadda wax gacanta noo soo galeen ma laha marka waqtiga hadda ila soo hadlay waa 3 barka galabnimo way waqtiga qabuuraha aada waa la soo duugay bano ee baran kara marka saas iyadoo jirta talaajooyin raadi talaajooyin biid banaanka ma qaban karaan idaan almuhiim hadda waxaan rabaa dawladda inay xaqay ii soo saarto wiilkayga ana duuganay alxamdulillah shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegaa inay arintan ay la shaqeeyaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حلا ماشان وحنا laga dilay wiil 14 jir ah mishaayidka ku soo dukaday salaada cisho okay guys waa u jeedin dabcan xaaladda Muqdisho ciyaal weero halkaas ay maraysaa inay ilmihi yaraa mishaayidka ka soo baxay ayaga ma u dukadaan in wadada u istaagaan oo ay dilaan oo ay seef iyo toori la dhacaan markaan marar badan lahaa ilmahan waxay soo wadaan iyo wabiga weyn maanta waa ka final waxa laga dhaxlay in ilmihi yaraa islaamigu istaagaan mishaayidka hortiisa ay ku dilaan markii Ilaahay uu naxariisto wiilkan wiil aad u yar waaye 14 jir dadka qaar 16 jir ay leeyihiin wuxuuna wiil sidoo kale Turkiga u socday sida halkan ku qoran markii Ilaahay uu naxariisto maanta soo laabanay laakiin waxa loo baahan yahay kuwa kale in la badbaadiyo oo ilmahan laga hortago maxaa yeelay hadii laga aamuso biri kuwa kale ay sii dilayaan waa dad manaxayaal xasidiina oo gangster oo cabtooy ah cid una hayaan mala dad badan ay dhameeyeen listeeda dadka ay dilna tarmaya marka halaga hortago insha Allah soo joogtina taxadar samee iska ilaali inay dhibaato ku geystaan uniga yar bal u soo duceeyay idinka waxayna bal muuqaalkiisa xiga bye bye waxaan deganahay alcadaalo degmada jaay hurwaayan degan alcadaalan deganahay waa macaad ciyaal weerar raaxad iga qaadeen yaa saaki igaara laga soo mindiyeeyay yaa waa macaan weero guriga bira u hooyana malaha ciyaar weero wax naga cishanay mal hooyado cunuga hooyada u jeedo oo hooyada u jeedo dhar ay gadaysa hilib meesha ku gadaysa ma cunuga cili karaa yaa ila cunug ma cili kar ilaahay ha cilisha cunuga cili karaa cunug dabadeed ka dhashay leeyahay ma cili karaa yaa waxay cilinaysan malaha saaki igaar oo alyoonaan doonta alyoonaan oo kor arsaqan oo doontay oo raasha badan aan raasay ilmihii baawurka laga soo degsaday laga soo tuuriyay laga soo mindiyay waa laga soo baxay hadii la soo baxay igaarka hadana oo jareera la qabtay igaarka jareerka oo la qabtay waxa lagu dilay meesha lagu dilay 20 mindi lagu dhiftay hooyadiis arsaqa u dirsatay 20 mindi lagu dhiftay haye Allah musta'an hadana shal yaa la gaaray shal subaxdeeda la gaaray gabar oo qaraamanaha oo walaala oo nahay ninkeedu arsaq u doonay oo arsaq sacad oo alyoonka oo soo waayay soo noqday alyoonka oo soo waayay oo soo noqday yaa alyoonka soo waayay soo noqday jidka lagu qabtay waraa jareerta managa cilay dhab mindida dabada mindida dhab lagu siinoya ikilida lagu jukayna mindidi lagu jukaynoya waxa islaanim ma aha dhibkan wuxuu ugu bilaawday farmaajo markii waa dhaca la dhahay farmaajo waa dhaca markii la dhahay oo dhibkan ugu bilaawday ilaa hadda uu nahay sanad waa dhanta Soomaaliya sanad way dhantahay farmaajo ridowsi loo sheegay hadda dhibkaan haysto wax naga cishanay ma laha waxaana deganahay jamhuuriyo iyo alcadaala wadada u dhaxayay wadada kaarana deganahay ma fahanteen yaa wax ku dhintaa maxaa saako inuu ku dhintay war wax la dhaafay ma jirto jareerka jidka maray jilaac jidka maray waxba oo ma ahbo ciyaaq waxba ma jareer waa la dilo jilaac waa la dilo yaa siiba jareera u badan siiba jareera u badan yaa haweenkii ragga u badan habeen ma taabta ragga u badan isbaaro tuuriyo raaxad waa naga qaad meel ku noolaado gurigay ijaar mihi aniga waa ka guurooyaa ma fahamtay waxa uu guuray ciyaal weera uu guuraya wax iga cishana malaha degmadaan tagnay waxa la leeyahay ala guri waxa la leeyahay $30 keena ama saabax waa idin xiraaye ala guri $30 keena meesha tagnay $30 dhiibnay wixii u shaqo lacagta aan dhiibnay aan maxaan ku dhiibnay ciyaal weera naftana uu naga qaadanaan dhahan lacagta aan dhiibay maxaan ku dhiibay ciyaal weera waa idin ka celinaa $30 keena qasab waa cashuur waay degmadii $30 way ka qaadanaysaa wixii ka celinaysa malaha degmada wixii ka celinaysa degmada malaha
ما فهمت عيد هذا ما عيدك وحكوا قبها عيدك وحوا قبها ملها عيد اسكاجي جيد وحوا قبها ملها إلهي وحنا قبها إلهي غفور حين احنا قبها جرير ماشي وكل ما عضي جرير ماشي وكل عضي ما فهمت جرير أبي كرة وإسكاهي لهم ويان لهم أران وحوا أراي ملها إلهي وأرايو ما فهمتي waxaan rabaa in la soo gurmado yaa waa macaanay waan la dhameeyay ilmihi waan la dhameeyay igaarto waan la galay xabadana lagu laayno yaa jamhuuriyana daganahay ilaa duumaad kana waxaan rabaa in la soo gurmado oo sida islaamnimada oo shanta diin islaam in lagu soo gurmado oo la soo gurmado islaamnimada lagu soo gurmado hub ma haysani jareeraanahay maskiinaanahay waxaan rabnaa in la soo gurmado jareerkii abgaalka mujada abgaalka lama hadii laga diro jareer tamana laga dilo abgaal lama hadii laga diro tamana laga dilo jareer tamana laga dilo jareerka taman أبقى لما ديل جرت تمن على ديلوا إلهي درتيس أنا لو سوق جرمد مسكين أنا هاي وعاي سلم على بوش أنت كان هاي بوش كله يكر جبيه يعني إلهي درس عليه Kissy boys baby بغر تويدا DJ Bullet Badass Kissy boys baby بغر تويدا DJ Bullet Badass Kissy boys baby بغر تويدا DJ Bullet Badass